السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo dhawaada dhammaantiin. maanta cashirkan waxaan ku baran doonaa hadduu ilaahay yidhaahdo maxaa la yidhaahdaa back end. waxaan soo sameeyey video hore oo ku saabsanaa maxay ahayd nodejs. cashirkan waxaan ku baran doonaa hadduu ilaahay yidhaahdo maxay ahayd sidii aad u samayn kari lahayd maxay ahayd API iyo sidii aad ugu xidhi lahayd maxay ahayd database. marka informationka badanaa waxaad rabtaa inaad save garaysid iyo maaragtay inaad haddana informationkii aad maaragtay aad soo jiidatid ood meesha kala soo baxdid. muhiimadda waa applicationadu leeyihiin badanaa waa inaad information aad ku save garaysid iyo inaad information kala soo baxdid. marka cashirkan waxaan ku baran doonaa maxaa la yidhaahdaa frameworkiga la yidhaahdo express oo maaragtay lagu dul dhisay maxay ahayd nodejs iyo database-kana waxaan isticmaali doonaa maxay ahayd mongodb. mongodb waxa weeyaan waa non-relational database oo kamid ahaa database-yada maanta waqtigan ku jira caalamka ugu caansan. marka saddexdaba aan maaragtay isugu xidhi lahayn ayaan maaragtay front endgii iyo serverka iyo database-ka ayaan baran doonaa hadduu ilaah yidhaahdo. marka ugu horeyn waxa weeyaan waxaan isticmaalaynaa mongodb website-kooda ayaan galaynaa ama waxaan dhigi karaa ama google garayn karaa. marka waxaan leenahay get started. mongodb atlas. marka kala ugu horeeya ku dhufanaynaa mongodb. waxaad samayn kartaa ama cloud-ka ayaad maaragtay database ahaankaaga aad ku isticmaali kartaa ama mashiinkaaga ama maxay ahayd computerkaaga ayaad kusoo dejisan kartaa. marka innaga waxaan isticmaalaynaa midkan ah cloud-ka. marka haddaad rabtid emailkaaga ayaad ku sign up garayn kartaa ama waxaad ama formka ayaad buuxin kartaa. marka sign up ayaan dhahaynaa. marka emailkaas ayaan maaragtay baan ku sign up garaynayaa. marka waxaan leenahay accept privacy and policy kadib submit ayaan dhahaynaa. marka wuu inoo soo load garaynayaa. organization marka halkan aan buuxinaynaa organization waxaan iska dhahaynaa some programmer. projectigana waxaanu bixinaynaa magac baanu bixinaynaa oo leenahay node project iska dheh. and luqadana waa javascript. continue ayaan leenahay. okay marka halkan saddex qaybood ayuu leeyahay. qayb lacag ayaad bixinaysaa, qaybna waa free. marka kan freega ayaan dooranaynaa. markasta wax freega ayaa la jecel yahay.
and kabacdi waxaan sameysanaynaa cluster ayaan sameysanaynaa. Okay, AWS taa weeyaan. Kana meesha kuugu dhow, wadanka kuugu dhow ayaad wadamadan meesha ama qaaradahan midka kuugu dhow ayaad dooranaysaa. Marka aniga Australia say ugu dhow Australia ayaan dooranayaa. Create cluster ayaad leedahay. Markaas create a database username and password. Halkan waxaan dooranaynaa som ayaan bixinaynaa, and halkan ama waxaan sameyn karaaba, waxaan dhihi karaa qofka yani isticmaali kara database accesskaaga, yani informationkan aad database ka gelinayso yaa maaragtay ayaa isticmaali kara. Marka quick start ayaan ku laabanayaa. Halkan waxaan ku qoraynaa so passwordkana waxaan ka dhigaynaa 1 2 3 4 5. Let's try again. 1 2 3 4 5 6. API haga raacnina. Okay, markaas marka waxaa weeyaan usernameka iyo passwordka waa inaad yani aad haysataa, sababtoo ah dhawaan ayaan maaragtay ayaan isticmaalaynaa. IP addresskana waxaan ka dhigaynaa 0 0 0 ayaan ka dhigaynaa. Inter ayaan leenahay. ama halkan ayaan ka gali karaa IP address ayaan leenahay. Marka allow access from anywhere, maadaama oo maaragtay aan local machine ku sameynayna, laakiin markaad deployment sameynaysid IP addresskaaga saxda ayaad gelinaysaa, laakiin kan allow ayaan leenahay access from anywhere. Bacdi waxaan leenahay confirm. marka hadda waxaan sameysanaynaa maxaa la yidhaahdaa connect ayaan leenahay. connect ayaan ku dhufanaynaa. marka kaa dhexda ayaan ku dhufanaynaa ay ku qoran tahay connect your application. kadib wuxuuna siinayaa stringigan ayuuna siinayaa,
kaasaan marka maaragtay ayaan copy-sanaynaa. halkaana make sure inuu yahay nodejs. kaana kan ugu dambeeyay ayaan ku daysanaynaa versionka. okay, marka intaas markaan sameyno kaasaan copy-sanaynaa, kabacdi aan iska xidhaynaa. okay, marka collectionska ayaan sameysanaynaa. collection waxaa laga wadaa yani table oo kale markaad SQL aad isticmaalaysid. waxaan rabaa inaan markaas waxaan u baahannahay inaan sameysano collection. database ayaan magac u bixinaynaa. nodejs API ayaan ku daynaynaa. magacana waxaan u bixinaynaa userska. create ayaan leenahay. markaas uu maxaa ahayd uu noo sameeyey databasena magaceen databaseka magaciisu waxaa weeyaan nodejs API. collectionkana ama tableka maxay ahayday na waxaa weeyaan users collection maxaa la yidhahdaa collectionka oo maaragtay ka dhigan table. qaybtan meeshan wax lagu qorqorayana halkana waxaa la yidhahdaa documents oo maaragtay sidii JSON ahaa maxaa la yidhahdaa JSON format weeyaan. okay, marka halkaa marayno aan sameysano maxay ahayday waxaan sameysanaynaa folder. sameysanaynaa documents, new folder. waxaan u bixinaynaa maxay ahayday demo 1 ayaan u bixinaynaa. kadib waxaan ku furaynaa maxay ahayday Visual Studio Code ayaan ku furaynaa. so markasta ood sameynaysid maxaa la yidhaahdaa nodejs application waxaad u baahan
markastoo nodejs application sameynaysa waa inaad soo install garaysatid maxaa la yidhahdaa nodejs. kaana waxaan kaga soo hadlay sida loo soo install garaysto cashirkii hore soo sameeyey, marka hadda waxba dib uguma noqonayno. marka halkaa markaan marayno terminalka ayaan furanaynaa, control J haddaan dhahno. marka packageska waxa ugu horeeya markaad applicationkana sameysanaysid waa inaan sameysano package.json file. waxaan leenahay npm init -y. marka commandigani wuxuu noo sameynayaa fileka la yidhaahdo package.json ayuu noo sameynayaa. marka haddaan fiirino waxaa noo qoran information yar oo maaragta applicationkeena ku saabsan, yani magaciisa, versionka, fileka maaragtay javascriptiga oo maaragtay oo main entryga ah meesha laga soo galaya applicationka, iyo scriptska oo meesha maaragtay aan ka raan garaynayno applicationkeena, iyo dependencies oo markaan hadda package-yada aan u baahana markaan install garayno way ka mid tahay frameworkiga maxaa la yidhahdaa loo yaqaan express, kaas oo ah framework iska leeyahay nodejs oo lagu sameeyo maxay ahayd web serverka. waxaa kaloon u baahanahay horta waxaan ka tegay install baan u baahana halkaan aan dhaho npm install. waxaa kaloon u baahanahay body parser, kaasoo noo sahlaya codsiyada inaan process garayno. waxaa kaloon u baahanahay mongoose, kaasuu iska leeyahay mongodb framework uu leeyahay, kaasoo isaguna leh methods noo sahlaya inaan si fiican si dhib yaraan serverka ula xidhiidhno. marka intaas ayaan u baahanahay. okay, marka hadda installationkii ugu dhameeyey, marka hadaan mar labaad fiirino package wuxuu noogu soo daray qaybtan dependencyga la yidhaahdo packageka applicationkeena ku tiirsan yahay ah, iyo folderkan kale la yidhahdo isagana node modules oo faylal aad fara badan ay ku jiraan, kuwaas oo maaragtay waxyaabihii lagu sameeyey ah maxay ahayd express iyo mongoose iyo body parser. marka uma baahnid inaad folderka waxba ka ogaatid, iyo kan kale asagana la yidhaahdo package.json. intaas ayuu labadaas noogu soo daray. marka waxaan sameysanaynaa
file la yidhaahdo maxay ahayday kan iska xidhna package.jsonka waxba uma baanin lana outline-kan iyo waxaan noo saaray wixii aan garanay sida okay anyways waxaan samaysanaynaa maxaa la yidhaahdaa file la yidhaahdo server.js samaysanaynaa I think fileka meel khaldan ayuu ku sameeyey node modules ayuu dhex geliyey ka soo saarayna marka no marka amaba waan ka delete garaynaynaa meeshaas xoogaa meel khaldan ayay noo diray packagekaas laakiin hadda ayaan sameynaynaa marka server.js aan leenahay marka meeshan waxaan ku sameysanaynaa maxay ahayd web serverkeeni marka waxa koowaad aan u baahanay waxa weeyaan waa express oo require ayaan isticmaalaynaa methodka la yidhaahdo marka halkan waxaan maaragtay aan soo dejisanaynaa packageka express oo ahaa maxay ahayday package iska lahay nodejs const express ayaan leenahay marka functionka waxaan u baahanahay si aan u isticmaalo inaan info garayno ama aan u yeedhno const aba ayaan dhahaynaa marka hadda markaan u yeedhno maxay ahayday express appka ayaan hadda isticmaali karaa markaan intaan sameyno waxaan u baahannahay meel aan codsiyada lasoo dirayo aan ka dhegeysano marka waxaan leenahay const port ayaan u baahannahay waxaan u bixin karaa waxaan ka dhigi karaa 4000 oo kale waxaan iska dhahdaaba 5000 iska dheh okay marka intaan markaan portiga samaysano waxaan u baahannahay inaan isticmaalno method la yidhaahdo listen listen method ayaan isticmaalaynaa si aan u dhegeysano waxaan leenahay app.listen portiga
variable ayaan soo qabsanaynaa kabacdi markaad portiga markaad kusoo dhacdo functionka waxaan leenahay waan loo garanaynaa login ayaan sameynaynaa waxaan loo garanaynaa yani connectionkii uu noo xiriirmay oo kale string template ayaan isticmaalaynaa marka waxaan leenahay server server running $sign string template يعني javascript شو shaqeysaa weeyaan okay marka waxaan leenahay save intaa markaan sameyno serverkeena ayaan run garaynaynaa marka waxyaabahan waxaan kusoo sharaxay maxay ahayd video hore sida waxaad u baahan tahay marka serverkeena inaan run garayna ayaan u baahannahay marka wuxuu leeyahay server running on 5000 marka haddaan hadda tagno maxay ahayd haddaan save dhaho aan maxay ahayd save garayo control s marka waxaan tagaynaa maxay ahayd localhost 5000 ufanayna marka wuxuu noo soo saarayaa maxay ahayd cannot get ayuu leeyahay sababtoo ah maxay ahayd wax routers aan sameynin marka routerskaan hadda sameyno routerka waxa weeyaan yani website maxay ahayd marka URL ka gelisid waxa URL ka dambeeya ayaa router la yiraahdaa oo meeshii loo soo hagaagayay codsiga ah marka haddaan iska sameyno mid maxay ahayd symbol ah oo nidhaahno app.get marka get waxa weeyaan waa http method oo waxaa jira ilaa maxay ahayd waxaa jira get ayaa jira oo markaad aad rabto information aad heshid post oo ah markaad wax sameynaysid iyo waxaa kaloo jira delete ayaa jira oo markaad wax delete garaynaysid waxaa kaloo jira maxay ahayd put oo markaad wax update garaynaysid methodska oo loo yaqaano http methods weeyaan na waxaa la sameeyaa markaad CRUD operation markaad sameynaysid oo ahaa create, read, update and delete oo maaragtay applicationada badan ay isticmaalaan oo ah waxaan maanta sameynayno marka routerka markaad rabtid inaad sameysid laba wax ayuu qaadanayaa midkan koobaad waxa weeyaan waa pathka ama maxay ahayd URL ka aad rabtid inuu aado kaasoo hadda waxaan leenahay users midka labaadna waxa weeyaan waa functionka markii URL ka lagu qoro wixii la sameyn lahaa oo laba wax ayuu qaataa request iyo response oo ah codsi iyo jawaab ka dhigan marka arrow function ayaan sameynaa marka haddii aan hadda aan isticmaalo responsiga objectiga res dot maxaa la yidhahdaa send yani waxbaan iska qoraynaa waxaan leenahay hello students leenahay marka control s haddaan dhahno haddana waxa weeyaan waxaan dhahaynaa control c si aan serverkii aan u run garayno haddana waxaan leenahay node server.js marka hadda uma baahnin markasta inaan control c server.js dhahno
waxaan sameynaynaa maxay ahaydey package la yidhaahdo nodman kaasoo noo sahlaya maxay ahaydey inaan ayaan soo install garaysana noo sahlaya inuu wixii si automatic ah noogu sameeyo uu pageka serverka automatic refreshment ku sameeyo. marka waxaan leenahay npm install dash d dash capital D yani ka dhigan waxaan rabnaa inaan aanu isticmaalno un markaan developmentiga sameynayno nodman ayaa la yidhaahdaa markaas. marka waxaan leenahay enter waan noo install gare. marka waxaan sugaynaa intuu maaragtay noo install garaynayo ayaan sugaynaa. okay marka uu noo dhammaystiray marka waxaan u baahanahay inaan ku noqono package.json dib ugu laabano. marka scriptiga ayaan wax ka bedelaynaa meeshaas ay intaa ku qorantaan iska masaxaynaa kana iska masaxaynaa asagana. marka waxaan ku qoraynaa start waxaan leenahay nodman server.js marka safe ayaan leenahay. marka hadda haddaan dhahno nodman aan dhahno maxay ahaydey nodman server.js waxa weeyaan si automatic ayaa maxay ahaydey ayuu wixii isbedelan sameyna noogu refresh garaynayaa ama serverka uma baahin kolba inaan soo kicino. markaas ka ujeedadiisu waa intaas. marka halkan markaan marayno serverkeeni waxa weeyaan uu noo shaqeynayaa. halkana hello studentigii aan fiirino marka aan pathka aan fiirino marka haddii aan ku qoro users oo kale aan enter dhahno wuxuu noo soo saaray yani waka responsive noo soo celiyey oo ah maanta hello students oo kii aan ku qoray ahayd halkan ku qoray. marka halkan markaan marayno aan databasekaan maaragtay mongoose aan kusoo xidhiidhino maxay ahayd nodejs. marka waxaan sameyn karnaa waxaan u baahannahay inaynu maxay ahaydey aan require garayno mongoose ayaan leenahay. ayaan kusaf garaysanaynaa. okay marka hadda waan isticmaali karaa maxay ahaydey packageka oo ahaa mongoose. waxaa leenahay mongoose.connect methodka la yidhaahdo. methodkan oo qaadanaya maxay ahaydey saad halkaa ka aragto string ayuu qaadanayaa. stringgaas oo ahaa maxay ahaydey kii aan maaragtay soo koobiyeysanay markaan database ka sameysanaynay. marka waa bahalka url dheer weeyaan. waxaan u baahanahay inaan dhowr wax ka bedelo. meesha uu kuugu soo qorayo passwordka ayaan gelinaynaa. waan u malayn inuu ahaa haddaan iloobin marka fadlan ha iloobin aad u baahan tahay.
saasaan ka dhigaa waan jeclahay. waxaa kale aan u baahnay inaan bedelana waa database nameka oo inta udhaxaysa maxay ahayde my first database baa ku qoran, marka waa calaamad su-aasha qaybtaa yare maaragtay udhaxaysa. marka waxaan